Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo wakiilada kale iyagana nagala jooga daladaha ama ururada kale ee ka dhisan dalka Uganda iyo xubnaha kale ardayda iyaguna firfircoon kamida inaan idinka mahadceliyo sidaad shirka u soo ajiibteen iyo runtii hawlaha kale ee wanaagsan ee u heesaan ardaydeena Soomaaliyeed intaas kadib madashan in ay tahay madal sanadla ah oo laakiin sanadkan ay tahay tii koowaad xarajeynayna inay noqoto mid sanad walba markaasi dadka muhiimka u ah ardaydeena ama indhaha u ah oo ay gudoomiyaasha jaamacadaha ugu horeeyaan inay isku arkaan oo ay markaasi masiirka iyo danaha ardayda Soomaaliyeed ay kaga hadlaan insha Allah waan rajaynaynaa mid wax ku oolo miro dhala oo jilba jilka ka dambeeya oo ka sii dhaxlay inuu noqon doono insha Allah qodobada ama ajandayaasha shirka hadda inoo furan sidaad u jeedaanba qodobka noogu muhiimsan oo ah caqabadaha soo wajaha inta badan ardaydeena iyo sidii loo xalin lahaa halkan kulleeyto waa isla wada fiirin doonaa marka gudoomiyaasha jaamacadaha inta badan haduu alla idmo ahmiyada siin doonaa maadaama waqtigan uu nagu yar yahay inaan qodobkaas si fiican aan markaas ugu wada hadalno sidoo kale intana aan markaan caqabadihii aan helno kadib inaan xalkeedii sidii loo xalin lahaa inaan markaas isla garanno kadibna wixii aan ka dhigno wax miro dhal oo shaqeeya haduu alla idmo kulanka ay wada yeesheen gudoomiyaasha jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed xubno ka socday sida guud ardayda iyo madaxda midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo horkacayay wakiilka Uganda oo fadhiya Mudane Cabdiqaadir Fiidka ajandaha shirkan sanadlaha ah wuxuu ahaa 3 qodob qodobka koobaad wuxuu ahaa in gudoomiyaasha ay isdhaafsadaan warbixino waxyaabo u qabsoomay sanadkii tagay si fiican ay gudoomiyaashu ugu warbixiyeen la isku dhaafsaday xogaha kala gedisan ee sanadkii 2019 qabsoomay qodobka labaad wuxuu ahaa qorshaha sanadka cusub ee 2020 u yaala ururada kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda waa qorshe ugu muhiimsanaay oo sanadka 2020 gudoomiyaashu si wada jira iyo bahda maqso ay u falanqeeyeen in 2020 la gaaro achievements qurux badan qodobka saddexaad wuxuu ahaa caqabadaha haysta ardada iyo way forwardkooda ama maaragtay sida looga bixi karo oo maaragtay solutionskooda caqabadaha aad ayaa looga sheekeeyay sida ardadu markay yimaadaan oo maaragtay bilaawayaan wax jaamacadaha ama waxbarashadii waxyaabaha ay isticmaalaan sida boodooyinka iyo falalka shilalka u yimaada adiga wax caqabada oo mar walba la soo kordha ardada ay arkeen gudoomiyaasha jaamacadaha iyo xubnaha ka ahba aad ayaa loo falanqeeyay sidoo kale xalka ayaa asna la falanqeeyay saddexdaas ciwaan ayuu u badnaa shirka sanadlaha ah lagu falanqeeyay runtii aad ayaa maaragtay looga guul gaaray kulanka wuxuu ku soo dhamaaday si farxad ah si maaragtay reen ah isfahan ah waxaana lagu ballamay in ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda la gaarsiiyo sanadkan waxyaabo ka bedelan waxyaabihii hore